عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنت باديات بين سلام يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. إن تحني عشر كقرآن الكريم أين كجرنا بشنا وبشي رمضان إن شاء الله تعالى وحأن رباه إن آيات القرآن هرتنا كم قطع آيات كبيرة من الساعة آيات سيدي تمنا هديان ترهان بولغو وآيات سيدي تمنا آيات سيدي تمنا دي وحا كبيرة من الساعة هل كان كبيرة من الساعة إلا هل كان يصو بلابو إلا هل كان يقول لما آيات سيدي تمنا إن وحا أن ميشان سر وبرانينا مع عشرة سر أويهين وحويان إن عشرة خوصي بدنكودو أي دي سوماليدو أما بوسي هنقطو أما ديغشوها نقطو أما wax kale baa noqotay ay dadku aad u garanayaan markaas daladeed meelaha aan la garanayn ayaan soo qabsanayaa si gaadu ay noo noqoto wax mataqaana inoo cuntama ama aynu si fiican u fahmi karno haddii aan soo qaato aayadaasi qawaaniinta horaan u soo sheegay qawaaniintu meel kale ay ku jiraan yani wixii qaanuun ah ee aad mataqaana rabtid inaad baratid waxaad ka eegaysaa qaybtan hadda halkan aan kusoo bandhigi doono waa qaybtan ay ku qoran tahay barashada higaada afka carbeed halkaas sare ayaad ka aragtaa waa barashada higaada afka carabiga weeyaan waana fara badan yihiin haddii aad hoos u socotid oo istiraahad eeg aad ay fara badan yihiin oo waxaas waa wada qawaaniin aan ka diyaariyay higaada carabiga weeyaan marka qaybtaas ayaad dib ugu laabanaysaa qaybtaas ayaad markaa aad si fiican hordhaca ilaa iyo casharada oo kale aad si fiican u soo akhriyi doontaa qaybtaas waxa weeyaan higaada hadda waxaynu wadnaa xagga qur-aanka weeyaan marka qaybta higaadana iyadana casharo kale waa u harsan yahay laakiin hadda qaybahan sii wadna waa kuwa halkaas ayaad ugu tegi doontaa insha allahu aan kusoo laabana qaybteena qur-aanka aayadda qur-aanka ee halkan inooga muuqata aan soo dhaweysano marka ugu horeysa taaka ayaan u socon doonaa si fiican si aan isla jaanqaadna ayaan doonayaa ereygu marka uu shidan yahay horena waan u sheegay casharadii ka horreeyay kuwan waan u sheegay ereygu markuu shidan yahay labadan ayaa la isku qabanaya kan iyo kan la isku qabanayaa kabacdi miimku laba xaba laga dhigayaa laba miim baa laga dhigayaa miim kor dhigan iyo miim reeban ka hor reeban ayaa thada lagu qabanayaa marka thum baa la isku dhahayaa marka hore marka xigtana miimkii aan reebnayn ee kor dhignaa ayaad ku dhawaaqaysaa marka waxay noqonaysaa thum iyo ma thumma okay halkan ayaad ku arkaysaa isagana ja waa jiimkaasi markuu kor dhigan yahay ja baa loo yaqaanaa caynkii weeye isagana markuu dhexda ku jira qaabkaas uu eegyahay marka ca baa la dhahayaa cadaasi laankan ayuu ku reeban yahay marka cal ja cal nuunka halkaa kaga muuqda waa kor dhigan yahay waa na weeyaan laakiin alif yaroo halkaas ah oo qofku aanu arki karin ayaa ka muuqda marka nuunkaad ku reebaysaa alifkaasi marka meeshii na'da ahayd naa baa dhahaysaa naa kabacdina kaafkoo kor dhigan isagana ka baa dhahaysaa marka waxay isku noqonaysaa jacalnaaka halkan haddaa aragtid ca ayaa ugu horeysa waxaa ku xigtaa laada alifkan yara halkan kaaga muuqda ayaa laa lagu yidhi marka hore higaada waxaan kusoo baranay in wax kasta oo la dheeraynayo oo kor dhigan la hadday tahay laada saasaa loo qorayaa la laakiin hadday laa tahay alif baa lagu darayaa marka laa saasaa loo qorayaa marka alifkii laankan alifkii lagu daray waa kaa laa baa la dhahayaa marka waxay isku noqonaysaa thumma jacalnaaka calaa waxaa xiga ereygan waa sha weeyaan oo shiinka sha baa la dhahayaa raada markay hoos dhigan tahay waa ri laakiin ya-dan ayaa ku xigta marka ri haddii ay hoos dhigan tahay oo ya-daasi ay reeban tahay ku xigto
rii baa la dhahayaa, rii waa la yara dheereynayaa, rii baa la dhahayaa. markaa sha rii iyo ca iyo tin, laakiin maanta tin lama dhahayo. sababta loo dhihi waayo waxaa weeye ereyga ku xiga ayaa shidan. hadduu shidan yahay ereygaasi, xarafkan taada ah ee halkan kaaga muuqda, waxaa keliya aad u sameynaysaa hoos dhig, hal hoos dhiga. halkaa hoos dhig baad miimka ku qabanaysaa. marka waxay noqonaysaa sharii catim, tim miimkaasaad ku reebaysaa. yacni taadan hoos dhigan iyo miimkaas waa isku qabanaysaa, tim baa la isku dhahayaa. kabacdi miimka labaad, maadaama shadka uu laba xabo uu ka kooban yahay baan ku yiri, mid kasta 10 shadka ah ayaa jira isagana oo qaybta higaada hadda aan arkaynay ku dhex jira. kaasaa si fiican oo tafatiran aad u fahmi doontaa. marka labada miimka hore waa reeban yahay, miimka dambena waxaa haddii kaaga muuqdo wuxuu ka dhigaa waxa uu saaran yahayba labo ka dhigaa. midka hore wuu reebayaa, midka labaadna wuu hoos dhigaa. waxa weeye hadba shadka xarakada uu shadku wato ayuu u yeelay. tusaale ahaan miimka hore wuu reebay baan ku yidhi, miimka labaadna waa saas weeyaan, laakiin shadku xarakadee wataa, xarakadan wataa. marka miimku hoos dhigan yahay weeyaan. marka tim baan isku dhahayaa marka hore iyo mi. marka shariica tim, tim baan dhahayaa, mi waa gartay. miida waxaa ku xigtaa nuun isagana kor dhigan, markaa na ayaa loo yaqaanaa. markaa naada waxaa xiga alifkan yar, alifkan waa la tuurayaa isaga. haddii nuunkan xagan ka xigo wax kor dhigan baa hadduu ka xiga ama hoos dhigan ama gudan, haddii waxaa ka xiga alifka waa la tuurayaa. marka nuunkaasi waxa uu ku dhacayaa laanka, marka wuxuu noqonayaa minal, minal ayuu noqonayaa. laankaas ku dhacay, marka laanku waa reeban yahay, reebninka iyo nuunkaas isku dhacaya, minal buu noqday. alifkan iyo miimkanna waa la isku qabanayaa, am baa la isku dhahay, am iyo ri. marka amri weeyaan intaasi. marka intaas aan soo yara koobo, waxa weeyaan shariicatin min al-amri, shariicatin min al-amri. horaan sii socon doonaa. fa'da hadduu wax kor dhigan ama hoos dhigan uu alifkan yari waxaa ka xigo, daamis alifka yar waa la tuuraya weeyaan. marka fa'daasi iyo taadaas la isku reebayaa. waatan ku sheegay wax walba shadkaasi leeyahay laba xabo weeyaan. marka halkaasi laba ta weeyaan, ta kor dhigan iyo ta reeban. marka taadii reebanayd iyo fa'daas isku qabanaynaa, fat baa isku noqonaysaa marka hore. marka xigeenna ta baa la dhahayaa, fatta, fatta. markaan dhaho baadan waa hoos dhigan tahay, laakiin xarafka ku xiga ayaa reeban. marka bi'dan oo baadan hoos dhigan iyo caynkaas isku qabanayaa. marka waxay noqonaysaa biic, biic. marka biic marka ay raahdo haadan alifkeedaas ayaa lagu sii reebayaa, waxay noqonaysaa biicha, biicha bay noqonaysaa. halkan waxaa kaaga muuqda isagana halkan haddii aan isku soo koobo, fattabicha weeyaan, fattabicha. halkan waxaa aragtaa wa'dii waa sidaas, wa baa la dhahayaa markuu kor dhigan yahay. laankan alif buu wataa, waxaas waa alif, marka ama laan alif baaba loo yaqaanaa. marka laa baa la dhahayaa, walaa baa la dhahayaa, walaa. haye ta iyo taada kale waa la isku reebayaa. marka hore tat baa la isku dhahayaa. marka tat la isku dhaho baa ta'da haddana ta kale oo kor dhigan ayaa 3 ta baa halkaa ku jira, yacni laba ta oo isku reeban iyo ta kor dhigan. marka taada kor dhigan halkan ku jirta waa ta, labada ta isku reeban waa ta'dan halkan kaaga muuqata iyo ta aan ku muuqan. oo maxaan ku garanayaa inay taadaasi ay yacni halkaas ku jirto? waxaan ku garanayaa shadka haddaad aragtid xarafka uu ka sarreeyo shadka waa taadaas weeyaan. taadaasoo reeban baa qarsoon, yacni marka taadan iyo taadii reebnayd ee qarsoonayd baan isku qabanayaa, tat baan isku dhahayaa. markaasaan taadan kalena kor dhigayaa. marka tatta, tatta baan dhahayaa, tatta. haye baadan waa hoos dhigan tahay, caynkana waa reeban yahay, waxay isku noqonaysaa
تتبع marka aan isku soo akhriyo intan walaa tattabic iyadoo dhan aan hal mar isku soo wada akhriyo isagoo halkaas oo dhan aan isku soo akhriyo fattabi'ha walaa tattabic aan u laabto qaybtan halkan alifkan waa kor dhigan yahay haadana waa reeban tahay marka waa la isku dhahay haye wowgan waa kor dhigan yahay laakiin halkan waxaa kaaga muuqda alif markaasi calaamadaas leh calaamadaasi faahfaahinteeda meel baan kusoo kusoo sharaxay marka wowgaas oo maan jiidaya waa baan dhahayaa waa waxaan waa alifkii oo kor dhigan marka waa baan dhahayaa marka waa iyo markaad tiraahid isla markaba adii ayaad laanka ku qabanaysaa al baa isku dhahaysaa ahwaa al laanka mar labaad ba haddana kor dhigaysaa marka la baa dhahaysaa la marka daalkii oo hoos dhigan weeyaan daalkii baa leeyahay hoos dhigan weeyaan oo ya ku reeban marka ahwaa alladhiina weeyaan ahwaa al baa isku dhahayaa marka hore labadan oo ku sheegay alifkan halkana iyo laankana ayaa la isku qabanaya al la marka laankana mar labaad baadna la kor dhigayaa marka ahwaa alladhiina weeyaan waan kasii soconayaa insha allahu tacaala waxaa inoo xigta ereygan ahwaa alladhiina waxaa inoo xiga ereygan oo loo yaqaano la waxaa kusii xiga la ya-da iyo caynkaas la isku qabanaya markaa yac bay isku noqonaysaa laanka waa kor dhigan yahay la waa dhahaysaa miimkana waa godan yahay mu baa dhahaysaa wowgana waa reeban yahay isagana markaa miimkan oo mu ah ayaad jiidaysaa muu baa dhahaysaa muu nuunka waa kor dhigan yahay na baa la dhahayaa laakiin haddii uu ugu dambeeyo oo meeshii ugu dambeysay uu yahay waa la reebaa markaasee loo reebaya see la dhahayaa baa la dhahayaa keliya marka reebitaanku waa adoo yidhi oo kale carabka ayaad nuun oo kale ku muujinaysaa laakiin baa dhahaysaa haddii ra ahaan lahaydna baa dhihi lahayd oo kale marka waxay isku noqonaysaa laa yaclamuun ta ku sheeg waa saas laa yaclamuun wax raba inaan isku soo akhriyo aayaddii oo dhan iyadoo dhan ayaa raba inaan isku soo akhriyo waxay noqonaysaa markaasi thumma jacalnaaka calaa shariicatin min al-amri fattabichaa walaa tattabic ahwaa alladhiina laa yaclamuun marka qaabkan ayaad u sii qurxinaysaa adigoo sida leh ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. انتسموا سوق بقبينيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.